kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. qodobada aan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho oo la xoogan oo ka socda magaalada caasimadda ah iyo kulamadii ugu adkaa oo maanta mucaaradku ay ku yeelanayaan Muqdisho. xogo iyo warbixino dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa waxyaabaha kulamada looga hadli doono iyadoo dhammaan musharaxiintu ay ku sugan yihiin Muqdisho. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo booqasho lama filaan ugu tagay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. haddaba maxay ka wada hadleen? maxayse tahay arrinta uu Khayre ka raali geliyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame? muxuu Khayre kala hadlay madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed iyo siyaasiyiinta kale oo uu la kulmay? maxaase ka jira in Khayre lagu xiray shuruudihii ugu adkaa si uu uga mid noqdo xubnaha mucaaradka ee maanta shirku uga furmaya magaalada Muqdisho? warbixinadii ugu dambeeyay iyo abaabul socda ayaan idiin soo gudbin doonaa. wararkeena kalena waxaa ka mid ah filla Soomaaliya oo gashay mashquulkii ugu adkaa madaxweyne Farmaajo oo qaadanayo go'aano lama filaan ah si uu mucaaradka ugu muujiyo isu soo dhawaasho. haddaba maxaa ka jira in wax laga bedelayo xubnaha guddiga doorashada ay dawladdu magacawday iyo dawladda Itoobiya oo sheegtay inay jabhadda TPLF ka qabsatay laba magaalo oo muhiim ah? qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah. waa subax Sabti ah 12 bisha 12 ee November sanadka 2020. barnaamijkan wararka Soomaaliya oo midaan ku soo gudbinayno dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan. fadlan nala faafiyo wararkan oo gaarsiiya saaxiibadiina adinkoo ku sheer garanaya baraha bulshada. mahadsanidin. aynu ku bilowno wararkeena. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka bilowday olole xoogan oo ay wadaan musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay dib ugu soo laabtay caasimadda dalka. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo sidoo kale isna soo noqday madaxweynaha hore ee Soomaaliya, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, Shariif Xasan Sheekh Aadan, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdikariin Xuseen Guleed, daahir maxamuud geelle iyo kuwo kale oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kuwaas oo ka soo guuray magaalada Nairobi oo maalmihii la soo dhaafay ay olole ka wadeen. saacadihii ugu dambeeyay waxaa musharaxiintu ay yeesheen kulamo gaargaar ah oo ay markaasi uga arrinsanayeen arrimaha doorashada iyo sida ay u wajahayaan xaaladda dawladda ee ku aadan guddiyada doorashada. maanta oo Sabti ah waxaa lagu wadaa in hoteelka Jasiire ee magaalada Muqdisho uu ka furmo shir socon doona muddo 3 maalin ah kaas oo yeelanayaan musharaxiinta mucaaradka. shirkan ayaa waxaa musharaxiintu diiradda ay ku saari doonaan sidii ay mowqif midaysan uga istaagi lahaayeen arrimaha doorashooyinka dalka iyo guddiyada doorashada ay dawladdu magacawday. musharaxiintan ayaa samaysanaya midow ay ku wada jiraan iyaga oo aan la ogeyn sida uu ku jiri doono midowgaas maadaama ay ka wada midaysan yihiin doonista iyo damacooda kursiga dalka ugu sarreeya ee ah madaxweynaha dalka. qaar ka mid ah musharaxiinta oo shalay soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxay walaac ka muujiyeen sida ay doorasho ku dhici karto iyadoo ay jirto khilaafka ka jira xubnaha guddiga doorashada. shirka mucaaradka ayaa cadaadis weyn ku ah dawladda federaalka Soomaaliya oo iyadu markaasi iska dhiga tirtay baaqyada ka soo yeeraya mucaaradka. sidoo kale beesha caalamka ayaa war ay soo saartay ku baaqday in la xalliyo dhammaan tabashooyinka la isku hayo. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa weli ku adkaysanaysa in xubnaha guddiyada doorashada ay yihiin kuwo sharci ah halka ay musharaxiintana ay ku tilmaameen xubnahaasi kuwo laga soo xulay ciidamada nabad sugidda iyo xarunta madaxtooyada dalka. ra'iisul wasaaraha dalka iyo ku-xigeenkiisa iyo waliba wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in guddiyada doorashooyinka ay yihiin kuwo sharci ah oo aan waxba laga bedelaynin. dhinaca kalena ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa booqasho lama filaan ah xalay ugu tagay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. xasan cali Khayre oo uu weheliyay Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo senator Dhagdheer oo ka mid ah senatarada laga soo doorto Galmudug ayaa tagay hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka degan yahay magaalada Muqdisho isla markaana si wanaagsan loogu soo dhaweeyay halkaasi. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo hadda ah musharax madaxweyne ayaa raaligelin buuxda ka siiyay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame weerarkii ay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ku qaadeen guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame
warsame ahna xarunta xisbiga wadajir intii uu Khayre madaxa xukuumadda ka ahaa dalka. weerarkan oo 17 Diseembar 2017 ay fuliyeen ciidamo ka tirsan nabad sugidda ayaa waxaa lagu dilay 6 ka mid ah ciidamada ilaalada u ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyadoo sidoo kalena ay markaasi la xiray Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dhaawac loo geystay. qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayaa ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre waxa uu ku yiri waxa aan caawa hooygiisa ku booqday hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax madaxweyne ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame halkaas oo aan si walaaltinimo ku dheehan tahay isugu soo qalbi xaaranay. waxa uu intaasi ku daray Khayre waxaan ka raali geliyay dhibkii 17 Diseembar 2017 isaga iyo ilaaladiisa ka soo gaaray dhacdadii ka dhacday hooygiisa ayuu yiri Xasan Cali Khayre. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isaguna markaasi dhinaciisa qoraal soo dhigay barta uu Facebook ku leeyahay ayaa wuxuu kaga hadlay kulanka uu la yeeshay Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya uu ugu yimid raali gelin isla markaana uu ka gudoomay isagoo fariin u diray madaxda kale ee dawladda. waxaa caawa xarunta xisbiga wadajir nagu soo booqday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna musharax madaxweyne mudane Xasan Cali Khayre. Khayre waxa uu cudurdaar iyo raali gelin ka bixiyay weerarkii 17 Diseembar 2017. waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta kale ee dawladda ee weerarka ku lugta lahaa in ay fursadan oo kale weli u furan tahay ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah musharax madaxweyne. xog ay heshay warqaad ayaa sheegaysa in madasha xisbiyada qaran ay diideen musharax Xasan Cali Khayre inuu ka soo qayb galo shirka maanta ka furmaya ee magaalada Muqdisho oo midowga musharaxiinta ay yeelanayaan. sidaas darteed ayaa waxaa la sheegay in Xasan Cali Khayre lagu cadaadiyay in uu ka cudur daarto weeraradii ka dhacay Muqdisho iyo tacadiyadii loo geystay qaar ka mid ah madaxweynayaashii hore intii uu talada hayay. taasi ayaa ugu wacan baa leeyahay cudurdaarka oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu ugu tagay ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre. isla wararkan ayaynu ku guda jirnay qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya ayaa xalay kulamo gaargaar ah ku yeeshay magaalada Muqdisho. kulamada ayaa waxay dhex mareen madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre halka madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu la kulmay madaxweynihii hore Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed. kulamadan ayaa waxa intooda badan la isku dhaafsaday fikrado la xiriira doorashada uu haatan khilaafku hareeyay ee la qorsheeyay inay ka dhacdo dalka Soomaaliya. kulamadan gaargaarka ah ayaa waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo oo maalinta Baritaa ama waa maanta la qorsheeyay in kulan 3 cisho soconayo uu furmo ee musharaxiinta. si kastaba ha ahaatee kulamada musharaxiinta ayaa waxay cadaadis weyn saarayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qaybihii dambe ee wararkeena ayaan isla soo gaarnay filla Soomaaliya ayaa gashay mashquulkii ugu adkaa iyadoo madaxweyne Farmaajo uu markaasi qaadanayo go'aan lama filaan ah si uu mucaaradka ugu muujiyo isu soo dhawaansho. warar hoose oo aanu ka helnay madaxtooyada qaranka ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu damacsan yahay inuu isbedel ku sameeyo xubnaha guddiga doorashada ee magacaaban. isbedelkan ayaa saameyn doonin baliya dhammaan xubnaha guddiga hase ahaatee waxa ay wararku sheegayaan in xubno kooban la bedeli doono isla markaana kuwa kale lagu soo bedeli doono. lama oga in mucaaradku ay aqbali doonaan isbedelka uu rabo in uu sameeyo madaxweyne Farmaajo maadaama ay mucaaradku qaadaceen guddiyada doorashada iyagoo sidoo kale qaadacay qaabka ay dawladdu wax ku wado. hadallada mucaaradka ayaa waxay u muuqdaan kuwa aysan dawladda federaalka ay Soomaaliya tixgelinaynin halka mucaaradku ay ku goodinayaan inay qaadayaan tallaabo iyagoo ku baaqay in doorasho aan la isla ogolayn aysan dalka ka qaban karin dawladda uu hogaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wixii warar ay ku soo kordha xiisada taagan iyo mucaaradka kulamada ay yeelanayaan wararkeena dambe ayaan ku soo qaadi doonaa. ugu dambeynna dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in jabhadda TPLF ay ka qabsatay 2 magaalo oo muhiim ah. ciidamada Itoobiya ayaa qabsaday 2 magaalo oo ay kooxda jabhadda waqooyiga gobolka Tigray ka dagaalamaysa ay ku sugnaayeen sida ay dawladda Itoobiya xaqiijisay xilli dagaalka ka soconaya dalka Itoobiya oo 2 toddobaad galay oo u muuqda mid geysanaya musiibooyin bini'aadanimo oo aad u daran. war ay soo saartay dawladda ayaa waxay ku sheegtay in ciidamada Itoobiya ay qabsadeen magaalooyinka la yiraahdo Ahum iyo sidoo kale Adwa oo ka tirsan gobolka
Tigreega. Boqolaal iyo kumanaan dad ah ayaa la sheegaya inay ku dhinteen colaadda u dhaxaysa jabhadda TPLF ee Tigreega iyo ciidamada dowladda dhexe ee Ethiopia. Kumanaan kale ayaa la sheegay inay ka qarxeen gobolka Tigreega. colaadda ka socota dalka Ethiopia ayaa gashay 2 toddobaad waxaana ay timid kadib markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu sheegay in dowladda ay xarumo ay lahayd ay soo weerareen kooxda TPLF isla markaana ay ciidamadu ka jawaabeen. dowladda ayaa sheegtay in ay haatan ku sii shaqeeyaan magaalada muhiimka ah ee la yiraahdo Adigrat oo qiyaasii 120 kilomitir oo 75 meel u jirta magaalada waqooyiga ku taalla ee la yiraahdo Mekelle oo ah caasimadda maamulka Tigreega oo ay ku nool yihiin dad ku dhow nus milyan oo magaaladaas ay degan yihiin. xaaladda Ethiopia ayaa kacsan waxaana laga dayrinayaa in ay dalka Ethiopia masuubiyiin bilaadanimo ka dhacaan. intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya tan iyo kulantadeena dambe saaxiibayaal nabadgelyo.